mar haddaad fikrad ka qaatay waxa chart of accountsku ay yihiin halkan waxaynu ku eegaynaa videogan sida chart of accountska loogu daro QuickBookska markii aynu soo samaysanay company failka ugu horeysay aynu interviewga buuxinaynay industry-gaynu dooranay chart of accountskeedii inoo soo dhigay kuwii baana inoogu sii jira inaanay kuugu dhammayn accountskaagii oo qaarad u baahantahay ay ka maqan yihiin marka videogan waxaan ku eegaynaa sida kuwa aad u baahan tahay ee kaa maqan aad ugu dari lahayd chart of accountska halkan iminka home-kii baan joogaa home screen-kii baan joogaa halkaa haddaad aragto company ay ku taalo dhinaca home screen-ka hoostiisa haddaan ku dhufto chart of accountskii buu geynayaa oo waxa weeye halkan haddaan ku dhufto wuu ii furayaa liiskii chart of accountska at the same time company halkaa ay ku taalo menuskayga haddaad aad kala bixiso oo aad halkan eegtana chart of accountskii liiskoodii wuu kuu furayaa at the same time waxaad samayn kartaa inaad shortcutka keyboardkaaga control ee aad taabato shortcutkii wuu kuu furayaa chart of accountskaagii laakiin QuickBooks wuxuu aad u isticmaalaa waxa la dhaho lists halka ugu fiican aad ka tagi kartaa inaad list ka tagto halka ugu sareysa waxa ku yaala chart of accounts QuickBooks intuu automatic kuugu sameeyay markaad industry-ga soo dooratay waa kuwa aanad u baahnayn sida la isaga masaxo waynu eegi doonaa oo videoga ku xiga ayaynu eegi doonaa laakiin videogan waxaan rabaa inaynu ku eegno kuwa aad u baahan tahay kaa maqan saad ugu darsan lahayd haddaad halkaa adoo taagan aad control new taabato keyboardkaaga wuxuu ku geynayaa halkan oo ah halkii aad kaga darsan karto account cusub keyboardkaygan control new taabtay sida oo kale haddaad halkan hoose tagtay ku taalo account oo aad arrowga yare hoos jeeda drop-down menu-ga aad kala bixiso halkaa ugu sareysa waxaad ku arkaysaa new markaad ku dhufato waxaa ku furmaya windowga chart of accounts kaga dari lahayd account-ka aad ku daraysaa noociisa ayaa waxa ugu horeeya dooranaysaa ay tahay account-ka aad ku darsanaysaa hadduu yahay midaad dakhliga ku xisaabsato income aad ku darsanaysaa halkaa imika markaan ku dhufto tusaale ahaan halkan tusaaleyaal buu kugu siinayaa account-ada ku darsan karto sida product sales alaabta aad iibiso lacagta kaa soo gasha ama dakhliga kaa soo gala haddaad service iibiso service kaa soo hadduu expense yani aad doonayso inaad ku xisaabiso iyo kharashaad gashana halkan aad ku dhufsanaysaa waxa weeye markaa kharashka noociisa yani account type-ku waa important hal type baana dooran kartaa haddaad doonayso inaad account fixed asset sida dhismihii dhulkii waxa weeye gawaadhidii kombuyuutarradii farniijaradii waxa aad ku darsanaysana halkan aad ku dhufsanaysaa ugu kaa tusaalayaal kaasina yani halkan kuwaad kaga darsan karto okay haddaad current asset ku darsanayso cash halkan aad kaga darsanaysaa haddii hantidii dadka meesha lihi ay ku bilaabeen meesha yani ay gashadeen meesha ay lahaayeen aad ku darsanaysaa halkan kaga darsan intan in ka duwan haddaad ku darsanayso halkan kaga darsanaysaa wayn u iman doonaa bal ka soo qaad iminka inaan doonayo inaan ku darsado account guud oo cash inaan ku darsado okay bankii baan taabanayaa oo bank waxaan doonayaa cash ku darsado account cashka ah halkan waxaad ku dhuftay tusaaleyaal waxaad kaga darsan kartaa kurbiti cashkaaga checkingkaaga savingkaaga waxyaalahaas kaga darsan kartaa halkaa ban markaad dooratay continue baad leedahay continue okay halkaa account typekiisii waa ban accountka magaciisii okay waxaan u bixinayaa waa cash baan u bixinayaa accountkan waxaan doonayaa inaan ku xisaabsado inuu head u noqdo dhammaan waxaan cash haysto oo dhan iyo caashash kala duwan hadday noqoto kasaadi u jira hadday noqoto marka waxaan odhanayaa description ma raacinayo fiican accountka guud ee naqadka tusaale ahaan intaas inaan description geliyo kaa intaasaan odhanaya haddaan doonayo inaan accountkaas oo qura ku daro safe and close baan odhanayaa haddaan doonayo inaan kuwa kale ku daro safe and new baan odhanayaa safe and new markaan idhaahdo waxaan doonayaa inaan ku darsado account kale oo saadkayga saadaan isticmaalaa saad okay saadaydu waa sab account waxay u tahay ay hoos tegaysaa accountkaygii guud ee cashka ayay hoos tegaysaa saad numberkaygu waxa weeye tusaale ahaan numberkayga saadku haddaan doonayo inaan u sameeyo waan ka tegi karaa account numberkayga yani accountkayga saadkayga numberkiisu waa 4415717 saadku waxa weeye waa self explanatory oo uma baahan inaan wax sharxa aan raaciyo safe and new baan odhanayaa safe and new baan odhanayaa waxaan kaloo doonayaa inaan ku darsado bank account aan dahabshiil ku leeyahay tusaale ahaan checking account baan odhanayaa isla wuxuu hoos tegayaa khasab maaha inaad hoos geyso laakiin anaa doonaya
kaashada kala duwanaan haysto lam inay account-ka cash-ka naqadka ay ugu hoos uga galaan ka waxaan onayaa description ku optional ka soo qadin inuu account-kaygu yahay D7214 halkan routing numberku baan kasta wuxuu leeyahay ID number oo gaar ah marka anigu ka waxuma baahan maadaama kan uu baan yahay oo aan check jarayo waxaan rabaa QuickBooks-ku in uu ixasuusiyo check-gu marka uu marayo tusaalaha uu ka bilaabo markuu marayo 1400 sida boqolka harsani ee check-ga harsani inta aanay wali iga dhamaan aan check cusub uga dalbado dahabshiil ka sayfani wale cash account-kaygii waan gashaday waxaan doonayaa in aan gashado marka macaamiishu ay wax iga amahatay intaan lacagtii ii keenin account-kan ku xisaabsan lahaa marka account type-kii waan bedelayaa halkan waxaan kala soo baxayaa oo aan ka raadsanayaa accounts receivable halkan waxaan leeyahay accounts receivable weeyaan waxa weeye waa account-ka ii xisaabin doona lacagta macaamiishu ay igala maqantay markaan wax ka iibiyay intaan lacagtii ii keenin save and you waan leeyahay waxaan kaloo ku darsanayaa mid deena oo waxa weeye anigu markaan wax soo amaahdo sida waxaan iibinayo oo kale inta aanan lacagta bixin like oo kale marka la isku lacagna lacagtiisa bixin waxa weeye biyaha kale markaan lacagtiisa bixin account aan ku xisaabiyo oo accounts payable noociisu yahay halkan waxaan dooranayaa accounts payable oo waxa weeye waa lacagaha lagu leeyahay intaasaan doonayaa inaan ku darsado waxaan oranayaa save and close iminka markaan leeyahay accounts-kaygii waa kuwan kuwii aan ku soo darsaday cash-ka saddexdaasaan ku darsaday accounts receivable baan ku darsaday accounts payable baan ku darsaday sidaas waxa weeye waa sidaad chart of accounts-kaaga u darsan karto